بسم الله الرحمن الرحيم وعماري تلادها تضبية طبنكا بشا جون سنة لبكن لباتن يشان أو كوبيغان كوبيا لباتنكا بشا ذو الحجة سنة كن أفر بقول أفرتن يلح تاريخ الهجرية كسو دوادا مركله إيا برامجكي ورارك مانتا قضبضا آن إذي كوغو هينانا وحا كميدا dagaalka Iran iyo Israa'iil ayaa galay marxalad xasaasi ah iyadoo saacadihii la soo dhaafay ay dhaceen weerar kala duwan Iran ayaa maanta si ba'an u duqeysay goobaha halbowlaha u ah nidaamka ciidamada iyo sirdoonka Israa'iil waxay ku dhawaaqday dhankeeda inay dishay taliyihii guud ee ciidamada Iran ee dhawaan loo magacaabay xilka tani waxay ka macno tahay in muddo 72 saacadood la dilay labadii taliye ee ugu sareysay taliska ciidamada Iran walow dilkan dambe ee maanta dhanka Iran aan laga xaqiijin haddaba qaybta dambe ee barnaamijka ee xubinta falaqaynta waxaan idinkugu soo gudbinaynaa waxa qobaradu ay ka leedahay weeraradan lagu beegsanayo madaxda ciidamada Iran qodobada kale ee barnaamijka aan idinkugu haynana waxa ka mid ah ciidanka ilaalada kacaanka islaamiga ee Iran oo shaaciyay in weerarkii maanta ay u adeegsadeen mid ka mid ah gantaaladooda ugu casrisan iyagoo wacd ku maray in ay sii xoojin doonaan weerarada ka dhanka ah Israa'iil magaalooyinka Tel Aviv Haifa iyo Herzliya ayaa xilligan dab iyo uura oo ka socda iyadoo saxaafadda loo diiday in ay tagaan goobaha la duqeeyay xarumihii sirdoonka Mossad iyo ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale xilligan gubanaya waxaa soo baxay warar kala duwan oo la xiriira asaaraha ka dhashay duqimaha Iran ay fulisay Israa'iil oo ka jawaabaysa weerarada Iran ayaa iyana duqeysay magaalada Tehran iyo goobo kale labaha amaanka Iran ayaa shaaciyay inay gacanta ku dhigeen jawaasiis u shaqeynaysay sirdoonka Israa'iil Trump oo sheegay in ay suurtagal tahay in uu u diro bariga dhexe madaxweyne ku-xigeenkiisa ama ergigiisa gobolka si uu la kulmo madaxda Iran Ruushku walaa xoogan ayuu ka muujiyay in colaadan faraha ay ka baxdo wararkii ugu dambeeyay ee Gaza ayaan sidoo kale barnaamijkan idinkugu haynaa iyadoo Israa'iil maanta ay geysatay weerar lagu sifeeyay xasuuqa oo ay kula kacday shicib Falastiiniin ah oo qaarkood ku sugnaa goobaha gargaarka lagu qaybinayo dhammaan wararkan iyo qodobo kale oo faahfaahsan iyo wixii warar ee degdeg ah ee soo kordhaytayna hawada ku jirno ayaan idinkugu soo gudbinaynaa barnaamijka wararka maanta soo dhawaada marka la daawadayaan si aad u hesho wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan ka soo gudbino haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan uga xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka nimcati bacde oo barnaamijka la daadihinaysa ayaa inoogu bilaabaysa wararka kuwada ugu waaweyn nimca mahadsanid Mawlid maanta waxaan ku bilaabaynaa wararkayaga dhanka dagaalka Iran iyo Israel iyadoo labada dhinacba ay isweydaarsanayaan weeraro culus oo xagga cirka ah ayaa Iran waxa ay qaaday mid ka mid ah duqeymihii ugu xumaa oo ay la beegsatay goobaha istiraatiijiga ah Israel oo ay ka mid yihiin xarumaha sirdoonka ciidamada iyo saldhigyada diyaaradaha militariga kuwaasi oo ka baxay dab iyo holac ay qaarkoodna wali dabka uu qaxmayo warar laga helayo gudaha Israa'iil inkastoo aad loo qarinayo xarunta sirdoonka ee Mossad ee Ramat Hasharon iyo dhul qiyaastii u jira 50 kilomitir xarunta dhaxalka sirdoonka ayaa la beegsaday kuwaasi oo dab ka kacay iyadoo oo ilaa haddana la tacaalayo dabka xaruntaasi ka kacay muuqaalo la soo bandhigay oo baraha bulshada lagu faafiyay ayaa lagu sameeyay falanqeyn kuwaasina waxay muujiyeen laba qarax oo ka dhacay labada dhinac ee buundada Rahamo Zevi oo Gandhi iyo laba qarax oo kale oo ka dhacay dhismaha Big Fashion Galilot oo xarun ganacsi oo ku taala aagaasi ee la beegsaday qaraxyada ka dhashay gantaalada Iran ayaa sidoo kale ku dhacay deegaanka Ramat Hasharon ee magaalada Tel Aviv sida ay warinayso warbaahinta Israa'iil warbaahinta ayaa baraha Telegramka ku faafisay muuqaalo iyo sawirro muujinaya dhismayaal ku yaala magaalada Herzliya oo dab u qabsaday kadib gantaalada Iran markii halkaasi ay ku habsadeen iyadoo aan la shaacin goobaha sida tooska loo beegsaday aadna loo qariyay waxaase loo qaatay goobaha halbowle u ah nidaamka ciidamada iyo kuwa siyaasadda ee Israa'iil subaxnimadii hore ee maanta oo Tel Aviv ayaa lagu qaaday weerar Iran ay fulisay iyadoo lagu garaacay 20 ilaa 30 gantaal kuwaasi oo sababay qaraxyo xoog leh oo meelo kala duwan ku dhacay warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegtay in 60 qof oo ku noolaa
deegaanka Haifa iyo 1300 oo qof oo deganaa deegaanka la yiraahdo Petah Tikva iyo ku dhawaad 300 oo qof oo deganaa Tel Aviv la dejiyay hotel kadib markii gantaalada Iran ay waxyeello gaarsiiyeen guryahoodii waaxda faafareebka ee militariga Israa'iil ayaa si adag u qarisay qasaaraha ka dhashay gantaalada Iran maanta ay ku garaacday Israa'iil waxaana aad loo mamnuucay in la daawaco meelaha gantaaladu ay ku soo dhaceen muuqaalada ama sawirrada iyadoo aan ogolaansho laga helin arrintan ayaa waxa loo qaatay in Israa'iil maanta jug culus ay soo gaartay afayeen u hadlay wasaaradda difaaca Iran General Reza Talayi oo ka hadlay weerarkani ayaa yiri waxaan markii ugu horeysay ee ku adeegsanay mid ka mid ah gantaaladeena weerarkii ay ciidamada qalabka sida maanta fuliyeen nidaamka difaaca iyo sahnuniyadu ma aysan awoodin inay ogaadaan ama joojiyaan gantaalka waxayna marqaati ka noqon doonaan la yaabyo kale oo badan isla wararkan ciidanka Iran ay baahiyeen taliyaha ciidanka dhulka ee Iran General Qiyamarat Haydari ayaa isna ka hadlay weerarkii ay qaadeen waxaana uu yiri weerarada lagu qaaday goobaha istiraatiijiga ah ee hay'adda sahnuniyada way sii xoogaysan doonaan saacadaha soo socda waxaana bilownay muujad weeraro oo xoogan oo hub casri ah loo adeegsaday waxaana sii kordhin doonaa saacadaha soo socda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee aan dirnay ayaa guul ka gaaray burburinta hubka iyo goobaha istiraatiijiga ah ee sahnuniyada waxaan adeegsanay diyaarado quus ah oo burbur xoogan ee u geystay xarumaha istiraatiijiga ah ee hay'adda sahnuniyada dhanka Israa'iil taliska ciidamada ayaa sheegay in ay weerar ku qaadeen bartamaha magaalada Tehran waxaana bayaan ay soo saareen lagu yiri ciidanka cirka ayaa beegsaday xarun ku taal bartamaha Tehran waxaana weerarkaasi lagu dilay taliyihii guud ee ciidamada militariga Iran Ali Shadmani wuxuu ahaa taliyaha ugu sarreeya militariga ee aadka ugu dhow hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei Shadmani wuxuu hogaamiyaa taliska Khatimul Anbiya ee mas'uulka ah maareynta dagaalada iyo qorsheynta weerarada warkan sheegashada ah ilaa hadda cid madax banaan oo xaqiijin karta ma jirto gaar ahaan dilka Ali Shadmani sidoo kale ma jiro wax war ah oo beenin ama xaqiijin ah oo la xiriira sheegashada Israa'iil oo ka soo baxay dhanka Iran isla wararka Israa'iil wasiirka difaaca Israa'iil Israel Katz ayaa ugu baaqay shacabka Iran gaar ahaan magaalada Tehran inay iskaga baxaan deegaanadooda iyagoo tix raacaya waxa ugu yeeray tilmaamaha ciidamada Israa'iil wuxuu sheegay in Israa'iil ay si buuxda u garaacayso wasiirka u dhigay dhammaan jiidaha dagaalka iyadoo raacaysa yoolka gaarka ah ee dagaalka Katz waxa digrin uu u diray waxa ugu yeeray taliyaha Iran isagoo xusuusiyay inuusan hilmaabin wasiirka u dhigay masiibadii ku dhacday wadanka dariska la ah oo ula jeedo Ciraaq sidaas si lamid ah ciidanka Israa'iil ayaa ku andacoonaya inay si wadaan waxay ku tilmaameen burburinta nidaamyada istiraatiijiga ee xukunka Iran iyagoo si xoojinaya sida hadalka loo dhigay guulaha iyo balaarinta hawlgalka inkastoo ilaa hadda aysan cadayn guul buuxda oo Israa'iil ay gaartay oo la xiriira weerarada ka dhanka ah Iran waa tahay dhanka diblomaasiyadda isla colaadan haddii aynu eegno madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay inuu u diri karo madaxweyne ku-xigeenkiisa JD Vance ama ergeygiisa bariga dhexe Stephen Witkoff si ay ula xaajoodaan Iiraaniyiinta waxa uu sheegay inuu doonayo in si dhab ah loo soo afjaro colaadda ka taagan Iiraan aqalka Kremlinka dhankiisa haddii aynu eegno ee looga arrimiyo dalka Ruushka waxa uu ka digay in xaaladda bariga dhexe ay tahay mid aad u halis badan isla markaana haatan ku sii socota heer ka sii daran colaadda Ruushku waxa uu ugu baaqay Iiraan iyo Israa'iil in ay muujiyaan isxakameyn oo ay u gudbaan wada hadal siyaasadeed iyo xal diblomaasiyadeed oo nabadeed isla markaana lagu soo afjaro xiisadan taagan waa tahay bal aynu ku sii soconnay warar hadda degdeg ah oo soo dhacay hay'adda xakamaynta hubka nuclearka ee qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa hadda war ay soo tuurtay waxay ku sheegaysaa in ay jirto waxyaalo soo gaartay xarunta nuclearka Iran ee Natanz waxaana ay sheegaysaa xaruntan oo qaybta dhulka hoostiisa ku taal waxyaalo ay soo gaartay laakiin waxay hay'addu sheegtay in xarunta Fordow ee ku taal dalka Iran iyo xarunta kale Isfahan aysan jirin wax isbedel ah oo ku yimid warkan waa war hadda soo dhacay wixii ku soo kordha waynu arki doonaa
waa hagaag daawadayaal waxay nagu soo fool leh warar dheeraad ah oo ku aadan dagaalka Iiraan iyo Israel warar qasab ku saabsan xubintii falanqaynta iyo qodobo kale balse marka hore aynu eegno jawiga cimilada qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaalida aynu ku bilaabnay magaalada Muqdisho heerkulka cimiladeedu waa 29 digrii centigrade jawigeedu waa qorrax iyo daruuro wada jira xawaaraha dabayshuna waa 31 kilomitir saacadii magaalada Jigjiga heerkulka cimiladeedu waa 23 digrii centigrade jawigeedu waa daruuro xawaaraha dabayshuna waa 31 kilomitir saacadii magaalada Hargeysa heerkulka cimiladeedu waa 29 digrii centigrade jawigeedu waa daruuro xawaaraha dabayshuna waa 56 kilomitir saacadii magaalada Jabuuti heerkulka cimiladeedu waa 38 digrii centigrade jawigeedu waa qorrax daran xawaaraha dabayshuna waa 13 kilomitir saacadii magaalada Gaarisa heerkulka cimiladeedu waa 29 digrii centigrade jawigeedu waa mid daruuro ah xawaaraha dabayshuna waa 19 kilomitir saacadii magaalada Baydhabo heerkulka cimiladeedu waa 27 digrii centigrade jawigeedu waa daruuro xawaaraha dabayshuna waa 29 kilomitir saacadii ugu dambeynna magaalada Boosaaso heerkulka cimiladeedu waa 39 digrii centigrade jawigeedu waa qorrax daran xawaaraha dabayshuna waa 14 kilomitir saacadii soo dhawaada mar kale daawadayaal wali waxaad la socotaan barnaamijkii wararka maanta oo toos idinkaga imaanaya istuudiyaasheena koowaad iyo labaad barnaamijyadeena waxaad ka heli kartaan bogagga bulshada ee internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo waliba Telegram-ka warbixino qoraal ah faallooyin iyo macluumaadyo kale waxaad kala socon kartaan bogga internetka aynu ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirnaa HBN oo ka dhigo ehelkaaga wararka inta aanan u gudbin wararka kale ee colaadda Israa'iil iyo Iiraan iyo xubintii falanqaynta inoo soo socota xagga qasa aynu qoraansanno halkaasi oo lagu soo waramayo Israa'iil maanta inay ka geysatay weerar kale oo lagu sifeeyay xasuuq ciidamada Israa'iil inkastoo sidaad kula socoteen wararkayga ugu dambeeyay gaar ahaan barnaamijka xulashada wararka ee saakay baxay iyo barnaamijkii qubanaha in askar fara badan laga dilay oo dhimasho dhaawac loo geystay oo kamid ahaa taliye ku-xigeenkii guutada ee Golani ee ciidanka Israa'iil ee gaarka ah isla markaasna sarkaalka lagu dhaawacay weerar maanta ka dhacay galankii hore ilaa iyo xalay marayka Gaza ayaa waxa la sheegayaa weerarkaasi Israa'iil inay kaga jawaabtay xasuuq baan sida Falastiiniinta ku sugan marayka Gaza ay sheegeen kaas oo loo geystay dad rayida 74 qof ayaa la sheegayaa tan iyo xilligan in la dilay dadkaasi ku dhawaad 50 kamid ah ayaa waxa la sheegay rasaas lagu furay xilli ay ku sugnaayeen goob raashinka lagu qaybinayay oo halkaasi hawsha ay ka waday hay'ad lagu muransan yahay shaqadeeda oo Mareykanka laga leeyahay wasaaradda caafimaadka Jidda Gaza ayaa waxa ay sheegtay in tirada guud ee Falastiiniinta ku dhintay weerarada iyo duqeymaha Israa'iil imika inay gaartay 55493 qof dhaawac ayaa imika waxa uu cagacageenaya 129320 qof waa tan iyo 7 bishii Oktoobar 2023 waa tahay markana aynu dib ugu laabano wararka ku aadan xiisada Iiraan iyo Israel taliska ilaalada kacaanka islaamiga ah ee Iiraan ee loo yaqaano IRGC ayaa shaaciyay inay xireen wakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad oo ka shaqeynayay xarun xasaasi ah oo ku taala gobolka Ilaan ee galbeedka Iiraan IRGC ma aysan cadeyn magaca ama nooca xaruntaasi ee laga helay ama laga xiray wakiilka ka tirsan ee hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad sidoo kale booliiska Iiraan ayaa sheegay in wakiil ka tirsan hay'adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad lagu xiray ee magaalada Karaj ee galbeedka Tehran iyadoo uu lagu eedeeyay inuu soo saarayay ama uu tijaabinayay walxo qarxa oo markaasi gacanta ku hayay maalmihii la soo dhaafay mas'uuliyiinta Iiraan ayaa shaaciyay inay xireen tiro badan oo lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen hay'adda Mossad ee Israa'iil iyadoo arrintaasi ay ku soo beegmayso xilli uu kordhay weerarada yaryar ee gudaha dalka ka socda oo kuwaasi oo lagu beegsanayo aqoon-yahano iyo xarumo muhiim ah oo Iiraan ay leedahay Israa'iil muddo dheer waxa ayay waday hawlaha Mossad ee ka socday gudaha Iiraan iyadoo dalka Iiraan uu yahay wadan aad u baaxad weyn oo leh xuduudo badan oo ay la wadaagto dalalka la dariska ah warbaahinta ayaa sheegtay in dadka la qatay ay yihiin muwaadiniin Israa'iiliyiin ah waxaana ay xustay in tiradoodu aysan ahayn mid aad u badan marka loo eego tirada shacabka Iiraan ee ku dhow 100 milyan hagaag aynu ku soconay wararka wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Abbas Araghchi ayaa ka digay waxa uu ku sheegay shirqoolka hay'adaha sahyuuniyadda ee lagu balaarinayo dagaalka laguna gelinayo
in ay ku soo biiraan dhinacyada gobolka iyo kuwa caalamiga ah. Waxa uu sheegay in shacabka Iiraan ay si buuxda isku difaaci doonaan iyadoo lala tacaalayo gardarrada sahiyuuniyadda. Caraaqji waxa intaasi uu ku daray in beegsiga hay'adaha sahiyuuniyadda ay ku hayaan xarumaha saliidda Iiraan iyo biyaha gacanka ku yaal ay qayb ka tahay dadaalka lagu balaarinayo dagaalka. War kale oo dagaalka la xiriira ku-xigeenka amniga ee gobolka Razavi Khorasan ee dalkaasi Iiraan ayaa waxa uu daboolka ka qaaday in dhowr diyaaradood oo aan duuliye lahayn oo Israa'iil ay leedahay lagu soo riday magaalada ku taal waqooyiga bari ee dalkaasi ee Mashhad. Waxa kale oo soo baxaya war hadda soo dhacay oo sheegaya sida ay tibinayso shabakadda leedahay Axios. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la leeyahay ilaa hadda weli wuxuu ka soo horjeeda wasiirada loo dhigay aragtida ah in xukunka waddanka Iiraan laga tuuro dowladda kacaanka islaamiga. Aragtidaas oo leeyahay Netanyahu ayaa ku dhagan, laakiin sida uu suurtageli kartaba lama oga. Sababta qobarada waxay leeyihiin xitaa Mareykanku arrintaasi waxay ku qaadan kartaa waqti iyo dagaal aad u dheer inuu isku dayo arrintaasi in uu fuliyo marka loo eego awoodda Iiraan ka jirta. Taasoo u baahan baa leeyahay ciidamo gudaha gala. Mareykanku taas inuu geli karo iyo inuu samayn karo ayaa su'aalo badan la iska weydiinaya. waa hagaag daawadayaal haatan waxaynu soo gaarnay xubinta ugu dambaysa ee barnaamijka oo xubinta falanqaynta taasi oo nalaaba ku soo qaadano warbixinada iyo xogaha ay bixiyaan khubarada arrimaha militariga kuwa istiraatiijiyadda ciidamada siyaasadda iyo sirdoonka. sidoo kale waxaan ka marnayn oo xubintan ku soo qaadanaa kuna qaada dhignaa arrimaha waaweyn kuwaasi oo warbaahinta caalamku ay wax ka qorto amaba ay baahiso. xubinta maanta waxaan ku eegaynaa maxay khubaradu ka tiri in Israa'iil ay sii wado beegsiga madaxda ciidamada Iiraan iyo xarumaha xasaasiga ah sida kuwa ciidamada qabiirka arrimaha militariga iyo istiraatiijiyadda dagaalka. General Faiz al-Daweiri ayaa sheegay in Israa'iil oo si joogto ah u beegsanaysa madaxda militariga Iiraan ay muujinayso farqi weyn oo dhanka amniga ah oo Tehran ay ilaa hadda aysan u suuragelin inay dabaysho. waxaana uu ka digay in dilka madaxda sidan oo kale loo fuliyo oo carqaladeynayo nidaamka amarka iyo xakamaynta ee gudaha ciidamada militariga Iiraan. al-Daweiri waxa uu intaasi ku daray isagoo oo warbixin militari ku falanqeynaya Al Jazeera in dilka taliyaha cusub ee guud ee Iiraan oo la magacaabay kaliya 56 saacadood ka hor uu cadeynayo in Tehran aysan qaadin wax tallaabooyin oo taxaddar leh oo ku filan si loo ilaaliyo madaxdeeda. waxaana uu xusay in ciladu aysan ku koobnayn oo kaliya tiknoolajiyadda ama basaasnimada balse ay gaarsiisan tahay faragelin bini'aadantinimo iyo sidoo kale qaab dhismeedka maamulka laftiisa. ciidanka Israa'iil ayaa ku dhawaaqay sidaad kula socoteen warka inay dileen Ali Shadmani oo dhawaan loo magacaabay taliyaha guud ee ciidamada Iiraan iyagoo ku andacoonaya in howlgalkaasi oo dhacay xilli la beegsaday xarun ku taal bartamaha magaalada caasimadda Tehran taasi oo ku soo beegmaysa xilli Israa'iilkaasi duqeymo ay ka wado. General Daweiri waxa uu sheegay in la aqbali karin in la bedelo hoggaanka sare ee militariga Iiraan 48 saac ee kastaba, isagoo sheegay in tani ay sababayso burbur ku imaan kara wareegga go'aamada militariga iyo inay daciif noqdaan awoodda maareynta howlaha isku dhafan gaar ahaan iyadoo ay jirto xaalad iyo dagaal colaadeed oo gobolkana ku faafi kara kaasi oo aan horey loo arag. goobaha ammaanka leh qabiirku waxa uu sheegay in hogaamiyaasha militariga ee jooga goobaha xasaasiga ah ay ahayd inay ku sugnaadaan meelaha amniga leh oo aysan isticmaalin wax isgaarsiin ah oo si sahlan loo raadraaci karo. waxa uu xusay in taliyaha guud bilowgii xilkiisa uusan habbooneyn in sidaas loogu baneeyo cadow tiknoolajiyadii sirdoon sare leh sida Israa'iil. hoggaanka militariga Iiraan gaar ahaan xilalka kuwa sida taliyaha guud waxay u baahan yihiin bilo ay ku fahmaan faahfaahinta waxyaabaha kala duwan laga bilaabo howlgallada sirdoonka ilaha dhaqaale iyo qalab taasi oo ka dhigaysa bedelka degdega ah ee xilalkaasi mid daciifiya nidaamka halkii uu xoojin lahaa. al-Daweiri waxa uu sheegay in saameynta nafsiyan ee ka dhalatay in laba sargaal oo sare la beegsado muddo 72 saacadood gudahood ah ay noqon doonto mid muddo dheer ee ku reebta madaxda kale ee Iiraan maadaama mid waliba uu dareemayo cabsi iyo inuu ka shaqeynayo jawi amni darro ah. waxa uu hoosta ka xariiqay in dareenkaasi uu abuurayo cadaadis joogto ah oo gudaha ah isla markaana uu saameynayo hufnaanta go'aan qaadashada heerarka sare, isagoo xusay in saameynta nafsiga ahi aysan ka yareen tan muuqata ee howlgalladani maadaama ay qalbiyada madaxda ku abuurayso cabsi laga qabo in la dabagalo oo la dilo.
fariimaha Israa'iil. General Faisal Diwari waxa uu sheegay in fariimaha Israa'iil ay rabto inay u gudbiso Iiraaniyiinta iyadoo loo maray weeraradan ay yihiin kuwa badan kuwaasi oo ka bilaabanaya muujinta wasiirada loo yiri farqiga amni ee jira isla markaasna dhammaan kaas oo keeni kara in la beegsado madaxda sarsare ee Iiraan isla markaasna la tuso inuusan jirin qof ammaan ku jira meeshii uu doonaha joogay. waa intaasi uu ku daray in fariimahani ay sidoo kale muujinayaan dhanka istiraatiijiga ee militariga iyadoo Israa'iil ay doonayso inay curiyaamiso maskaxda hoggaanka Iiraan si go'aan walba oo militari uu u noqdo mid sababa xiisad iyo walaac amni taas oo hoos u dhigi karta hufnaanta ka jawaabista weerarada Israa'iil ee Iiraan ay sameynayso isla markaasna carqaladeyn karta nidaamka go'aaminta dagaalka iyo howlgallada. General Diwari waxa uu ku nuuxnuuxsaday inuu rumaysan yahay in haddii heerkan sare oo iswareejinta ah la sii wado ay markaasi suurtagal noqon karto xaaladdu inay isbedesho. waxaana uu yiri waxaan sidoo kale suurtagal noqon doonin iyadoo aan la fahmin qotadeerida saameynta nafsiyanka ah ee Israa'iil ay doonayso inay ku abuurto cadowgeeda ula jeeda Iiraan. sidaas darteed waxa uu sheegay in ilaalinta madaxda muhiimka ah iyo xarumaha xasaasiga ay tahay mudnaanta koowaad ee Iiraan in haddii xaaladan ay doonayso inay ka baxdo ama ay ku sii socoto marxaladda howlgallada ay ku fulinayso weerarada iyo duqeymaha ay ku hayso Israa'iil. qabiirku waxa uu carabka ku adkeeyay in Tehran ay si degdeg ah ugu baahan tahay nidaam ilaalin oo casri ah oo ay ka mid yihiin hogaamiyaasha siyaasadeed militariga iyo culimada isagoo ugu yeeray daahiyada birta si ay ugu shaqeeyaan jawi ammaan leh oo aan la beegsanin maalin kaste. militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada cirka ay beegsadeen xarun ku taala bartamaha Tehran halkaasi oo lagu dilay Ali Shadmani taliyaha guud ee ciidamada Iiraan waxaana ay xuseen inuu ahaa taliyihii ugu sareeyay ee ugu dhow hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei isla markaana uu mas'uul ka ahaa hogaanka Qatamul Anbiya oo maamula dagaalada iyo qorsheynta weerarada Iiraan ay fulinayso. waa tahay inta ayaa ku soo gabagabeynayna barnaamijkii wararka maanta waana ku mahadsantahay daawashada barnaamijka si aad ula socoto wararka barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbino haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horay aadan ugu xirnayn hadda ku soo biir waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka mar kale nabadgelyo.